fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe dheh kuna dhufo calaamadda gambaleelka ah si aad u hesho wararka iyo barnaamijyada aan halkan soo gelino waa mahadsantihiin. inta la xaqiijiyay 9 qof ayaa dilwadareed loogu geystay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo iyadoona sidoo kale falkaas uu dhaawac ka soo gaaray 2 qofood oo shacab ah kuwaasoo la dhigay isbitaalka weyn ee magaalada Gaalkacyo halkaas oo hadda xaaladooda caafimaad lagu dabiibayo. dadka la dilay oo hal meel lagu wada toogtay ayaa waxa ehlada marxuumiinta ay sheegeen inay ka shaqaysanayeen magaalada Gaalkacyo isla markaana qaarkood la qabtay xilli ay ka soo baxeen shaqadooda kuna sii jeedeen guryahooda. dilka ayaa la sheegay inay geysteen maleeshiyaad hubeysan oo ka careysan dil xalay Gaalkacyo lagu geystay Cali Dhiif oo ka tirsanaa ciidamada nabad sugidda Galmudug xilli uu fadhiyay goob lagu shaaheeyo. 9 qof ee dilwadareedka lagu geystay magaalada Gaalkacyo ayaa waxaa maleeshiyaadku hubeysan ay ka dhex qabteen gudaha magaalada Gaalkacyo iyagoona markii dambe la aaday duleedka magaalada halkaasoo mar qura laga maqlay rasaas xoogan. shacabka reer Gaalkacyo ayaa aad ugu xumaaday falkaasi iyagoona si wada jira u dalbaday in cadaaladda la hor keeno dadkii ka dambeeyay falka lagu dilay 9 qof oo dhammaantooda ka soo wada jeeda gobolada koonfureed ee dalka. ilaa hadda ma jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka Galmudug oo ka aadan dilwadareedka xalay ka dhacay magaalada Gaalkacyo. Libna Cajiib Xaaji, Radio Kulmiye, Gaalkacyo.